gabyagii weynaa ee weerar bulxan la oran jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday waagii intuu caada dhaafka ku kacay uu maansadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana ka tuuray inkastoo taxihiisii ammaanta ahaa ayuu bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waaye dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu ina rag u wada hanqal taagay kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiinle ugu soo horreeyey hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geeraaro ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee tolow nuur idiinle muxuu isku halaynayaa marka horeba nuur idiinle waxa uu mulaaxa isdamacsiiyey isaga uu og halka ay weerar arrintu ka marayso iyo sida uu inanta u jecel yahay degaanka ayuu wax kaga nool yahay sidaa darteedna wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay dadkii degaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisee ay isaga uun xidha u noqon doonto dhabtiina nuur idiinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo shidasa ma hayso taxihii weerar wax walaac ah ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hallayn jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadin ah ayaa xadyaha uga buuxay isaga ayuunbuuna isku hallaynay maalintii dambe xaajada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa ina idiinle la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u eg tahay tu aan gacan kuugu jirin marba haddii diidmo laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxan oo waagii baryaba gabayada ammaanta ah quraac iyo harimaba uga dhigaya markaas buu ugu jawaabay cagweyntaa gabyi oo noqotay oraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geerayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dan iyo daarad kama lihiyo horweynkayga iyo haleeladayda ayaa iga filan taana waxbaa ka jiray oo ina rakii geella iyo kii aan lahayni guurka magacu ka haro waayadaas uma silnaan jirin gabar kasta oo qurux lagu kuuniyo loona tartamo amaba la isku maandhaafo waxay mar walba ahaan jirtay ninka geela badan lihi inuu guurkeeda ku guulaysto kolkuu qaanka iyo qaalmaha yaradka ah soo tubo dabadeed nuur idiinle oo ishubaa ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxo ka dhalatay oo siduu hidduhu ahaa intuu yeedhay inantii aabbaheed ka doona afmaran lama soconne geel iyo xoolo kale waxa uu bixin doono ayuu golihii ka sheegay markaas buu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey dayrta markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo meherin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa wayse soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay lahayd aabbahay buu ina idiinla ega yahay wayse iska lahayde way ogeed aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrinna u dhammaan doonto si kastaba ha ahaatee weerar isma dhiibin geela nuur idiinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballanqaadaa haddii ay guursato gabaygiisan idiin soo socda sida laga garan kara wuxuu weerar aad isugu halaynayay aftahamo iyo laandheerannimo labadaas oo ay la ahayd inuu nuur idiinle kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karayso wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sasabay wuxuu ku xodxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sakow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxooy hore aayad loo qoraye labadii ushoodu isku taal kalaama oo laane ubadkeenna aan kala ciyayn agabar weeyaane waa kugu ataxiyaadsadaa magac arooriyaad adna umalka waad ila qabtaa aanan ebyoonayn indhahooda naaguhu ka jecel uufan geel badane ayliyi cellaan nimaan lahayn ma ogolaadaane dhul abaara oo mana diraac ibilku caws waayey ummad socota duul ulasitoo raguu itaar sheegtay arli buun ka dhacay wiil gobaa la irkanayaaye waxay aadan tahay gumi hadday aarankii tahay abtirsiinada lagu baxaa weydo oon ma leh ilwaad quruxsan leeyahay haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma ilxumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayli inna deeq xidaayadee ku taal boqor araafaada asli boqolah kuu lala afjabo arag wanaaggeeda usha luqunta aydida sunuuf ulal cabaadaysa oogada muggeeda inaan iibiyaan qabayn
axmed wiilashiisii oo shaqlana iyo awowgaaba ayax iyo arbahayaya iyo odaya tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo awmahad iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aabi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyaay abtiyaalada iyo wixii kuwa arxamo sheegtay in ku aragtay aadniga waan wada ujuurayna intaadse ina idinliyo nin guna u indhataagayso sawayna adeere ma arag aniga aarbooda waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idiliya dhalaarta qaarkeedba ay milaaxow maankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xela la-ayn haweenay aada u jeclayd ayuu qabay qudheedana waxba kama qarsoonaynoo sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana wax u ogeyd in badan ayay isku dayday inay u caqli celiso oo uu iyada iimaansado markii ay taas ku guulaysan weydana waxay u cabatay habloweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii eedda saaray waxay ku canaanteen naagnaaga haddii ay ku bannaanaan lahayd inaan ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiirsi u qaadatay ayay laabta ka oyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugama naasa caddaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadha uu laf iyo ludba ka haleelay hami iyo hawe adduunna la tiicaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u toog haysee afadiisii oo guwaabo qabta ayaa si degdeg ah gogol cusub iyo weeraaris isugu kor saartay barkin soomagala ka buuxana u duldhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo agtuumisay xeedyo iyo badiibado afka wada haya oo ruuxii arkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey intii ay ku maqnayd buu xagga eegay mase waa hilbo jeerjeer ah kuwa kumbis ah iyo oodkacgeed adari lagu udgiyey dhinaca kaleu eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caanaha ay ka soo midhaashay waraasi lo-aad karuur geel iyo garoor ari oo aan weli dhanaanaan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqo agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu gorodda laalaadshay garka iyo labada low ayuu isa saartay waxyar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gogasha u dhigtayba ma aha dharwada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay mara marsiina ah boqor midaba qurxoon gamba elyara oo sugul madow ah dugaagada lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo toray maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqday waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheekala-aanta iyo maqnaanshaha haddii uu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan maryo mooye aan sharxidda iga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku lahaa hararkiiyo kabdaha laysduldhigay sida haldhaa baalki hilibka cusub haydaariwan iyo subag la hoogaanshay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaad igu baayici kabaha aad hawda kaga yeedhin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagarla-aantaada haweenbaa tahay ee adigoon hadin kobtaan joogo waa habiila-aan dhuunigaad hooy leedahay ee hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahaye haasaawahaan qaybsanaa magac habeenkii iyo adaani hubsan soortaad halligi haysku goyne haragayga uunbaad arkiye kuma soo hoyan dhegaystayaal weligay ima soo marin tix uu nin gabya ahi u tiriya haweenay uu qabay oo midaan weerar igala culus igalana naxariis daran hadda gadaalkiina isagu mulaaxa macalfana nuur idinle ayay oolidii noqotay